بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته fiirsadayaal way baa ka dhawaada saana barnaamijka haweenka oo toddobaad walbaysan ku fiirsadaasan TV-ga Janaawkay xaruntiis dhexe magaalada Baydhabo toddobaadkan barnaamijka haweenka way baa ka qaadane way baa magaalada Baydhabo ku dhiyay kulan hal maalin haye oo lan qobadi ee gabdho suxufiyiinta ku howlgalayaan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo way baan ururkan ama seminaarkan hasbudabiriday oo qaban qaabiyay ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee gabdho SWJ way bana hadiray Baydhabo gudoomiyaha ururkaas Farxi Qeyrta isaasoo kala tiimshe way bana kulankan halka maalin Highland ku ka hadalay xaq dhowrka bilaanta iyo ku kaleeyeen saxaafada way baa ku qayb galay kulankan halka maalin haye gudoomiyaha koowaad ururka suxufiyiinta koonfur galbeed Soweja ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed Nosoja wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed Nadiifa Xaaji Armiya agaasimaha guud ee TV-ga koonfur galbeed ahna milkiilaha TV-ga Janaawkay shaqaliyaasa agaasimyaalka warbaahino kale ee ka howlgalayaan magaalada Baydhabo isaasoo kala haana ku mid madaxda warbaahino iyo gabdho ka shaqeeyayaan magaalada Baydhabo kulanka way baa marka hore la ka bilaaway munaasabad kooban way bana meelaas ku hadalay mas'uuliyiintan idun booliina ku weydnay magaalooyinka waaweyn ee dalka maadaama SWJ uu soo urur qareemo gabdho saxafiyiinta Soomaaliyeed waliba ay ujeedada lan iska kooy baaq xaq dhowr xaaladda guud oo ay ka shaqeeyaan gabdho warbaahinta xuquuqaad asaasi ah SWJ hore waliba ay ahaan qabatay daraasaad la ka ogaaday xaaladda gabdho saxafiyiinta iyo ka shaqeeyeen in Muqdisho ku qabanay gobolada kale ku qabanay in sitaala mid ahna magaalada Baydhabo waliba ku mid haytay markasta barnaamijyada uu qabadaana meelagu uu kooy jarnay marka daraasadoon aas-aasha magaalada Muqdisho ku bilaabnay waliba qanay 27 xarun warbaahineed oo ku yaala magaalada Muqdisho ujeedada guudna waliba asaasiyaadka xuquuqda gabdho warbaahinta Soomaaliya ay ku shaqeeyaan in waxyaabaha ku muhiimsan baaqa ka qoran wali kamid ah gabdho xuquuqaad asaasi inta la siintiyo shaqeeya tusaale gabadha markii warbaahinta ku shaqeeyaysa hadii ay noqoto intii fasax dhalmay helo korto mushaarshi iyo socdo karo in sidoo kale meelo angaar oo gabdho ku tukuda ama qolol hadii xiligi timetable-ka ama jadwalkii shaqada intii oo helo karaan in si taas la mid ah sinaanta jinsiga tababarada in wiilasha iyo gabdhoba intii oo insimnaado karaan marka 27 xarun warbaahineed oo Muqdisho ka yaalahan la qaadatay baaqaas agaasimayaasha la kulannay iyo dadka xarumo warbaahinta shaqeeyaan shaqaalo in si taala mid ah magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedyada yaseene in meelun hamarni wali ku mid Kismaayo hamarni oo isuunayoona la qaadade in safarka in ka dambeeyo Dhuusamareeb ahaay haddana wali hadirnay magaalada Baydhabo ee xarunta dawlad goboleedka koonfur galbeed in islaadiya jaro doono oo baaqa iyo wali ku koobanya dhammaan wada sharxa doona in dadkii barnaamijkan ku qayb qaaday agaasimayaasha iyo qaybaha kala duwan warbaahinta iyo wariyaasha una la kulanay doorsho islaadka ka araga doona dhammaan magaalooyinka iyo hamarni in walaas dhaansin shida doona si taalamid in Baydhabo oo geeka barnaamijkan ku furmi wali ku rajayaan yoona sasacamal intii oo barnaamijka qaybiyo ku noqda gobol kale niidamo markii uu umbana dadka hanbandhiga doonaan intii soo qayb ku noqotaan in mahadsantiin mar lamaad mar saddexaad inkastoo hay barnaamijka daqiiqado ku hor ama saacad ka hor intuu soo furmo laakiin balantii iyo meetingkii haddana suurta galay no problem barnaamijka furdo doono sidii aan ka tala galnay aan socdo doono sidoo kale mas'uuliyiinta wasiiradan ka horeyta agaasimaha TV-ga koonfur galbeed iyo raadiyaha dhammaan in dadka la hadlayo geekiyo aan badan ka aalay marka uu wal saasan badan oo ka dambe mala kaliya gabdho ma kala dardaarama lahaay in waana in sheega fadayeen ma imaleysay xarumo TV-da iyo idaacadaha inta badan inta iska raabeen laakiin gabar reporter ah ardayda dhalinyarada hadda galaaso reporter badan bayarta accept hadii lagu reebo in walaalay shukri oo aan record very brilliant and male rights and extraordinary way and aan ka mahadnaga oo tusaale naga gabdho kala yamel rights iyo jiilada lahaay oo mar walba iska diyaas
marka gabdho meer lahay xarumoysin ka shaqeysan howl far badan ka haytan iyada muhiim ngata laakiin way qurux badan inaysin tarbiyadin kaameradin recording ha qaatan dhalinyarada hada galansiin ka dhiirigeli lahay waan iyada muhiim singata midlamaad kulley walaalkay Umar Mustafa Nuur ba ku hadalay arimo oo xuquuqda meel raaysan iyo leen gabdho oo ka shaqeeyaan suxufiyiinta magaalada Baydhabo taglamaad si guud aan ka darada lahaay oo dhalinyarada suxufiyiinta hatta meelan roogana kala dardaarma lahaay may boohan qof walba suxufi waaye siyaabo shal duumaha ka galay laakiin bahalla adag jarta ama shaqo kasta ahayd horumariyowsha adikii hiranta waxyaabo adikii hiranta may ku mid ah xaqiiqdii wala adag shaqeys cilmi joognaada kasta iyada muhiimada aan oo micnaad inaan hayna taasisiin ku aqoon badan aan hayna laakiin ani isimba ma isfaraanahan may ku horumar kornay waan nafsadan iyo xirfaduna ka shaqeeyna horumari lahay kornahan inuu barana aqoon la xiriirto walayo geek meel raaysan waqtigii may roog xilladii hore oo walbarashada hayti idan dhib badan hayti may roog nafsadeeda adoo gurigeeda roogdo wala isbara korta dad far badan ma inay kala kaftamaynaha lan kasta oo losers ama drop out nagada iskuulada maana ha ka dhiya saxaafada gale xaqiiqdii madada fiiridana hooga anna nagda laakiin sawirku siga isku bedel korna oo walbarada korna saxaafada walaanka fudud oo la galo laakiin walaanka dhib badan oo la shaqeeyo marka ma jeelada lahay taasna inuu meel isku saarna ma eedan kama hadnagay SWJ oo runtii magaalada Baydhabo mar eedan far badan ka qobati seminaara gabdho wadiyo korlanka qaado capacity building eediyada lanka ma hadnagana fariiq khayrti iyo team shamay ku codsadanaha inay badiyaan gobolkana meel raaysan ahmiyad goonayo siyan أنت صاحب جيب جبايل لا هذا الكي إذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكل هذا السلامي ولا لنا برنامج كان SWJ فرحي خيرته يعني برنامج كان مدبر عودي يعني السلامة وأنا أنك كمان هنجانا برنامج كان ميل بدن قبلوا ينكو كسول عرقي عاصمة نفس الشيء عرقي مركا إسحلقامو كاسي إسحلقانتينيان أنك كمان هنجانا كل هذا بدن من بنان هذا الهدي بكل دت كنت سرومين صاحبوجي ولي لشيء قال لها يعمل إيرجلين يوب الشيء كل ما دام لا يسرون جي ميلي أنين اللي ينكويري درادي اللي هو نسكو هذا لو ما هنا هذا الميل كل مين كبنان مركب لكن لكن مرمان وهو بعد قابت بالكشينا أما قرون قابل كسرون جي هذا بنونك أنت هذا دربيت لازم واي marka maayna dhiirigelin laysiin ka dare xuquuqda gabdho iyo leeyin ya in badan la kana nagi arintaasna may leeyahay liiditaan ama may leeyahay cilladaya jarta daraadiya ya linka surumi saas daraadiya marka linka oleeyahay xuquuqdiyo gabdho xuquuqdiyo leeyin intii oo may leeyahay liin surumo la wacyi geliyo dadka liin sheega وخاصة may leeyahay qaybta warbaahinta ama suxufiyiinta ee gabdho marka saaxiibkay siraajina hada may baka daray hadalkii ka jaray gabar majarta oo macnaha reporter oo habahaaso war diyaariyaaso magaalka dhahgalaas majarta yaari marka taas hadii kaftan ko yar ana ka darsada saaxiibow gabdho ama habahayaan oo reporter nagadayaan meel wal sharuur leero jara sharuurkii baad jaabku ku shibado gabarta لكن مقدر حقوق دلين ضوء كم إذا تنادشوا سافين تنادشوا باللي يشجعوا مباهنتا قبلوا مركيو هبهان لقيابة دور قبلوا تسكدين أنا قبلوا أنت أنا تقول صودا ريبورتر هم بهن كسير شروع كنا أفكار المرسدي مركز دم قبل تسكت تكتب كاميرا وذو يو تلبية ديبو سي أن صوت يريد لين قصون أن كنا قداسي ولا توردون هذا صوت وكل هتورد ليسين لا يتريفان قبل قدام سدي marka gabartoo basaas la weel bariyeen linka naga maalinta saddex bahasama marka siraajo taasna marka intii dhalinyartan sheegto sharuur kala shalqiibsada hadii sharuur la helo gabdho markaas ah baa qoran tarshoba xuquuq dilin doodo ku midata may kala do ka daray ana walaalana farxi qaarta ka dhiirigeliyay xuquuqda oo suxufiyiinta gabdho khaasatan liin doodahay may bafaday intii la ka dara
horta dadka naftirshooba waalidiinta iyo shacabka soomaaliyeed intii lagu dhaadhiciy horta gabirta intii suxufi nagada korto war diyaari korto umadiya eday korto wal qobada korto dadka naftirshooba ambaahan intii message-kaas safayla linku gal dada jara waalidiin badan jaran oo gabdho suxufiyin gabartaati suxufiya nagata ama wariye nagata waalid badan ama dad badan ya jaran mentality-ga Afrika basaas isku eb maskanta bamayha ka dhiyaase gabarta wariye nagata intii wal xun yeeta maha aqlaga basaas aan shaqeeyo gabarto wariye nagata maanaha bisu taas halawti amalu dada saas ku dhaadhacsan dadka naftirshooba markan la ku gada ama liin sheega la ku wacyi geli intii taas aan hayna ku duunta wal faylana ata gabartan qof kasaba sharaftii sumcadii ay ilaalsado korta gabarta marka la ka dhaadhici waalidkeena wal badan la ka wacyi geli yooga marka ogaaniya waalidku ku dhaadhacsan ama qofka Afrikada rooga ama Soomaali rooga may ku dhaadhacsan qoftii walaalnagadoy ama abtanagadoy ama adeernagadoy gabartadii wariye naga tobantii bataytaas galanta ku bati iyo dad badan aaminsan sidoo unada markii taariikhdo ama program ko ku diyaari gabdho shukri bidaan ka jarti kaltuumi ka jarti markii ku sheekayayaan waalidka dad badan caqabado badan ku kulmayaan gabarta markii wariye nagadaas caqabado badan la kulmaysan hadii lamada waalidkiin ogolaadan ilma adeer iyo abti iyo bahdana kii deganba marka taas naftisheeba message-kaasna ka darsaday ra'yigaas antii wacyi gelin lagu suubi waliyadoo lin aragnay marka dadka badana maskaxiyan bas ka ku dhaadhacsan daduna dabcan hadii tusaale aan siin qaado lan jinna arag masala akhiraad arag rajare lan reer akhiraad arag jare reer akhiraad wal sheegay laakiin lan arag jare unu aragna dadna meen oo dhaadhacsan lafantiisu ay ahate ay ya usdan feerashay banaanka tarsamayaan lanka kala duseen yanoo dhaadhacsan waana lan aragna manager reer akhiraadka marka dadka yooga walban aragna yamay ku dhaadhacsan marka gabartii wariye naga toba intii wal xun yeeta marka taas markan dadka nafsooda lagu dhaadhiciyo taasna walaalana ka dhiiri galiye intii barnaamijkaas nafsooda dadka lagu gado leen sheego gabdhona ka dhiiri galiye may leeray gobolkan hadda magaalada Baydhabo may buwa wariyaal badan oo gabdho qaybta gabdho ay leeyahay marka nafsooda intii la wacyi galiyo gabdhooga sidii warbaahinta ku qeyb gal lahaayeen oo may leeray umadiyo wal gudbi lahaayeen hadii programka la qaaday may ba ka jirtay xudur oo kale yaa ku gabdho badan leeyahay Baydhabo marka gabdho Baydhabo ka shaqeeyaan warbaahinta ka shaqeeyaan eedantii oo yarta marka taasna may fada insha Allah intii oo naftisheeba la wacyi geli dadka la sheego laka may leeyahay isla ka dhiiri geli ama tan xuquuqda gabdho may fada in nafsiyan ba naftaan magalka una suxufiyiinta una wariyaalka una kulli intii la iska dhiiri geli gabdho naftisho intii una taana ba horto xuquuqda dhataan una ku bilaawato una ilaalin gabarta una macnaha geeka hadii una dhisno una garab una siino may leeyahay la wacyi geliyo naftisheeba dhiiri gelin leen soobi maybo ana dad tusaalahan hadii aan agaasimiga TV-ga aha gabarta meeli hadii man sheerka haday hatta meel faday gabarta markaas man sheerka iyo goona leensiyo laka dhiiri geli samay leeyahay warbaahinta inku ku niijamne ama iyadoo caqabado badan haysidi ya hadana dhinigi dagaalaga hadana hadii ibirku nagata dhabsheelata ku niijabaasa marka taas naftisha balankii mas'uul eena antii ka dhiiri geliyo xuquuqdii ilaali حقوق قبلنا ما يلا رئيس واجب أنه نصارهم دينيا إلهي سبحانه وتعالى أنه نصاري أو واجب إلهي سبحانه وتعالى يواجب بأنتياته رسولك صلى الله عليه وسلم نبسك دردارم لكن بدنا هدي هذا فير إذا مركي قيب برشيد لك هذا لو هدي ميل الناس كوي حفيز نقطوي أما ميل كست نقطوي شقة نقطوي ميل بين الناس كوي هدي بلان كجرت بدنا هدي له هذا لو حتى هذا هذا دين الناس كوي بلان تمانا هذا بلان لا يتسقط يلي وحقوق والربع ميل ميل روج ميل هذا لا يلي مرك ولا قصدنا مرك عادة أو دتك دعنا كوار بدن أو لكن دينيا هدي فيري رسولك صلى الله عليه وسلم لا تلا ذا جري دو مركية لا تلا ذا جري ما يلا رأيوس مركيوس دجال وسقاله حتى قطيب جلي جري رأيشوا المسد جري مرك فاطمة بنت رسول الله إيو زينب بنت جحش إيو عائشة رضي الله عنها أحاديث يهوريين أركتين مرك ما يكوريين dad may haayeen markan diiniyan hadii la ranaado diintiya qeyb kula haayeen kaaniya kula haayeen kaalmiyo kula haayeen ilaahay rasuulka ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka kaamaan rasuulkuna
axaadiiska sheegay marka taasna siinka dhiirigeliye meelerayus gabdho intii meelerayus marka ku horeeytaba unagii oo hadda isla shaqeeyaan ama shaqaaligii lankii gabdho qaybtiis ka shaqeeyaan ama isla rogan intii xuquuqdeeda la ilaali lankii wariyaaga lamadiyo hadii reporter isla in ama wari isla in hadii toona gabarata lankoona kuri isay lanka kuri ka markaas dulqaad iswaalado gabarta ku hormarsiyo wal kasab usun ogolaada sida wadamada reer galbeedka aragteen markii oo baaburka la rahayo ama baska la rahayo ama tareenka la rahayo macnaha gabarta ya kursiga ku ka hayna fadhiisiyaan marka hadii wala wala shal qaybsado gabarta la ka bilaawe yaa la siiyay marka naftakan taas uni diintana amarti uni badiintana amarti intuuna ixtiraamna gabarta wal kasab uu ku hormarsiina diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala bana amarti marka taasna siinka dhiirigeliye marbadan la ka naagay marka xuquuqda gabdho macnaha may ka tusiyaasay marka anti macnaha eed uu ku liidina xuquuqda ilaalinta gabdho ya macnaha eraygaas walaal han kan nago ama dad kumid ah in ka surmeen oo in ka ololeyahayaan sababta shantimeet anti uu gabdho uu liidana yaka koyti may la rajaray alif wax male gabar wax male saas oo kale maama saas oo kale la markii oo umulusidana hadda may leeyahay in fiirso markii oo unugiye dhali siyaasa kuribo hoba la dhalay may leeyahay ala laayas balanta naagto umulusida ba ala laayas ba habadi korleeyay hadii balan la dhalona markii linkooy bahay naagti may dhalay hoba leer hogaan jeesidaas ina may dhalay hogaan jeesidaas markii sidaada meeraas isku ya isdalay isku dhaafan ya isdalay leeyahay marka maana gabarada leelo kuwada marka maana caadaha jarjartiyo marka caado oo dadkii marka islaamka haya ka abuurantay caadaduna may banin ku koytay waagi jaahiliyada oo gabdho la duugu jiray iyadoo nool la duugu jiray waqti Umar ibn Khattab erajari markii aan xasuusdana boore markii aan xasuusdana arinto markii aan xasuusdana koode Umar ibn Khattab marka aan koodo markii aan booro siin shal sheegay markii aan booro may buwa anagoo xilliga jaahiliyada ka jaray ya gabartay gabaral in dhalinyaro gabartay markii shan jardeerti yali eebayay lanka sabab gabarada leelilay hayst yali markaas may go'aansaday gabartiyada nool intii aan duubiyo go'aansaday Umar ibn Khattab go'aan qodi soo gudkii qodow aradii qodowna yaana garshay u sakadhiida aradii ku garshay ku biyaas naxariistiya qabta aradii garki ku biyaas yaana qabrishay qodahay saasata duugiyay hooban xasuusada booreeri markii jaahilnimad meelaan oo deerti markoona kooda eri may baka kooda eri tamara suubiyeeri tamara inta iska dhadhaji sanamka waaldadeeri markan sanamkiya ka waaldaday hiraaban ka sabax bahay caawdeeri tuugeeri ilaaha ku waaldadeeri markan abaara dhiideeri baahay gobati sanamki aan seeday ilaahu meeray galantan ideemiyari ki galanto tamarti galanto ku goosdi ki aami maalin lama hadan wali baahdi leeytay galantan lama hadan ideemiyari ki si aan wadikii sanamkii oo ilaahna goolada timirtis ka dhajiyay inay dhamaayeen marka taasoo baan xasuusudana koodeen Umar macna jaahilnimada xilligaas meeliya deersanayd marka kulli insha Allah inta ana ka dheerada ma fadaw sinka dhiirigeliye wariyalkana ka dhiirigeliye gabdho insha Allah intii liin dadaalo maadaama dad daawado olayo banin surmeen oo hadda qayb kumid ah surmeen markaas walaalana suruntiyaana may ba fadana insha Allah intii iska dhiirigelina gabdho intii galan weyn la sii waana la ixtiraama xuquuqdiyoona la ilaaliyo insha Allah taasna sinka dhiirigeliye ha ku qayb galow kuna marlamaad imarsidaas siinka naga eedan kama santiin wal faylan iska pointen walaalana may balana farxiya eedan kama santaadii teamka isla shaqeeysan wal fayl oo may leerayus qiimo leh oo karaamo leh oo sharaf leh wada ilaahii la garab gala ونين أنت تبرتاني كجربتينا مقالة بيدو مركز كويتونا ما يبوا وريالك كل روغان يوغاسميال كي روغان سراج سير روغان مركز بجرب كانتيونا تيجنين أو ما يلا رئيسولي يرجلين ونين كعاون قف كده بلين جرب سرونا أو ما يلا مقالة دي أنا كويتو وانا لانكستب وهوليس سكود ذو هدية نيميرتو ونون أجيبنا أو لانك سكود سكودنا ده كوني جبه ولا مبهني قف كانتي لك يرجليه ولا سكودنا أنت والفعليات ونجيك هذا ما يلعبش والله نوبه هاي ملا أنت هول كمان ندياري كل وقته ميل كده ونكتب ميل هاي نيجيك أنت ونجليني ما كخسرنا مركب ولا لا نجرب شيء سروني ما كخسرنا مركب ولا مباهني أنت لسه كتير يجلي ولا سجرب سروما يعني أنت كمان نجان ولا لا نفرحي وهذين الشغلات هذا ود إذا مهم أنت إلهي كين فضاي ميلان ميلكوين أنت ديرتو رجعنا
haddana sii bilaari insha allah wali ra'yigana winakin jeedin wala qaado korto ku qaaday wali in qaado korneen wala isku kataba insha allah isina iidan kama santiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh way ka darsadaan una ka saxaafad ahaan laba ra'yi iyo fikir ku doohay warbaahintan kulley gabro oo saxaafadda una neegaho ka jar raadiyaalka ku shaqeeyaan ama telefishinada ku shaqeeyaan kulley xuquuqdiyo oo gabrinimada baryaalku way isku dhaadhiciyay meel walba in bilaanta la kaliido meel raay la ihaanayo laakiin uma gabrogana way banigayna first priority namudnaanta koowaad yani saarayin gabro warbaahinta ka shaqeeyaan wayba lagu ixtiraamo badanya hatta maamulku ma diraa qotaba shaqaalada dhatiyo gabro eedan ixtiraame way qadariye tan kale oo dhalmada aan gabro oo meel raay waana shaqeeya dhalo baneeyar ilaahay hadii badi haanasba u baahanayni kullay fasaxeedii walaajuna haanasba ku hadalo marle marka way faylahaaytay markii barnaamijyadku lagu hadalo in madii xog badan oo macluumaad la helo lagu hadalo laakiin hadda guud ahaan unuba ixtiraamahayna qadariyahayna madaga iyo meel rahin dhoon saarayeen qof isin ka darteeno neertan meel raaysiina meel in la dhooro xuquuqda lagu hadal walna fadana in bilowtan iidana ma hasantiin SWJ sidoo meel mar walba hadda koorno aramo badan oo gabro lagu hadalo iyo xuquuqda ku hadalan tagna tiiray lamadata iidana ma hasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh oo agaasmiyalkan ku horeeyaan Sheekh Ilyas Ali Nuur agaasimaha idaacadda dowladda koonfur galbeed Cumar Mustafa Nuur agaasimaha radio Arlaadi Aadan Geesay radio Baydhabo radio Warsan teamka Janawkay TV dhammaan wariyaalka kale ee madax banaan si aan ajiiban aan ku qayb galan barnaamijkan qurux badan oo runtii koonfur galbeedna xaqan lahayd inta la qabado maadaama maamul goboleedyada kale barnaamijka badashiga ku dhig marka wareysiinka la dardaarmay inta barnaamijkan lagu faa'iideysada wala uu ku turjumaana gabdho iyo agaasimiyalka wala hadhow una meel raayna iska eeda doona dad kale ka eedana inta barnaamijka nagada eedan ku taxadira teamkaas waliba laha barnaamijka jibi maasantiin teamka kale farxiyo iyo Leila isina dhawaada magaaladiina Koyten barnaamij qurux badan siin ku rajayaan insha Allah mar badan meel raay barnaamij nooc oo qabateen marka intaasan surmi waliba ka dhawaayay wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda goboleedka koonfur galbeed oo runtii barnaamijkan oo ajiibtantii aan ku qayb galay marka wasiir dhawaaw barnaamijka sininka daha furta iyo hadalada kiinku eedan sida meelaha ku jeeda eedan maasan إذا فرحنا كوزيرها كوزارة هواين كرمانة حقوق الإنسان كمعمل كونفور قلبت إني أحسن كل قيب قلا برنامج كان أقول لكم هذا لو جود أهم حقوقات كصحفيين تا جار أهم حقوقها جار كجبروه صحفيين تولين وبرنامج يدو بيبس كنتي يسيروا كورونا وقت شيء لها كيدي umaha nagaana dhammaan intii agaasantii gaar ahaan farxiya iyo teamshe oo xilweyn iska saareen guud ahaan deegaanada Soomaaliyeed iyo garwaaqsadeen xuquuqaadka suxufiyiinta intii ku hadalaan gaar ahaan xuquuqaha gaarka ee gabdho iyo leeyo waa maasantii waana soo dhaweynaynaa ka wasaaradda ahaan iyo ka maamul ahaan guud ahaan oo ka hadalo afka maamulka koonfur galbeed intaas bacdashe حقوقاتك صحفية مركي لك هذا لونتي كوزارة هام ولا بيركوري واجب ينو سارا إن بدن ناس كتيجي نونا برنامج كاس أما توبرهاتوي أما إسكيل مسح حرفة أو تين ورياشة كول جلو ديجانا دكم فرقل بيت نونا صوبنا إن بدن ناس كتيجي جارهان نوحوج سارا نجيب له صحفيين كول جلو ديجانا دكم فرقل بيت marwaayo noo gudubaan waajibaadka aan noo saaran dhiirigelinta suxufiyiinta dhalinyarada ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed marna si gaar ah noo dhiirigeliyaan gabdho suxufiyiinta bal kullu shay waa qadarka Ilaahay ka dhigay laakiin waxaan suuragalna inkastoo weli unan ku fadhiyana insha Allah next year sanadka cusub una fadaan waxyaabo badan oo dhinaca suxufiyiinta gaar ahaan gabdho
motivation mase dhiirigelin mase garab istaag tayeen whatever walaay fadaas haatoono mansuubina fadaan insha allah marar badan hataa jartii oo barnaamijyo na abaabulnay yartaan shukri iyo iskula shaqeeyanay manin suurta galna laakiin intaas bacdashe saxaafadda markii laga hadalo waa aaladan ku muhiimsan umadiya weel dharta inaga faylama dilagu ka hadalo Soomaaliya waliba reedhaan ku kabadahayta alxamdulillah dagaali iyo isqabqabsi iyo qalalaasa qabiilka bees garaysan wadanka madiisa problemas dhibaatooyin hajarya ku kabsado meelaha horumarshay iyo ifafaalashay iyo waxyaabaha wanaaga laga sheego kaalin weyn ku qaado waliba kamid ah meediyaha marka waliba faday dhammaan suxufiyiinta reer koonfur galbeed intaan mahadnaga horta iyo un ogsoogna xaalado adag waxyaabo payment mise ugu yaraan wal iyo dhiirigelin in la siiyo wanjarna even iyo un helaana qalabsho maybe ini jaabsho iyo ku fangareen qalabkii ku howlgala lahaayeen haddana iyo garwaaqsan iyo sulman garab sulman maamulsho mise deegaanada koonfur galbeed aan ka shaqeeya si mutadawacnimo ciidanka mahadnage anoo jaaniskan ka faa'iidaysado mahadnaq bacdashe saxaafadda markaas aan siin sheegay meelo ku muhiimsan waay ummad wanaagsha iyo horumarsha iyo fafaalasha iyo wacyigelinta bulshada meelo lagu fulii karo waay intaas haddeen jirna waa beesha caalamka maaragaas deegaanada dhigaan ee Soomaaliyeed maaragaan horumarkan iyo deegaanka baahidiisa iyo wacyigelinta bulshada marka muhiimadii la turuntii saxaafadiisa in dareemo korta maadaama wariyaasha ku howlgalaysan gatiin maysin sheego anoo ku faa'iidaysado marka jaaniska waliba faday gabdho suxufiyiinta reer koonfur galbeed bilow fayla haysana maasha allah geega horta ma jarjarna gabar wariya nagadelata suusu sheegay agaasimaha TV-yada deegaanada koonfur galbeed Ilyas Ali runtiis waa wali la ku aaminsan yahay waxyaabo oo fake ah mise been ah runtii reer koonfur galbeed hoobeena wali la kiyaabay dadkayna maadaama ilbaaxnimada deegaanada kala badan loo ku horeeyo anaga isqabqabsi iyo dagaaliyo waxyaabo badan nidaaya wax tradition mise dhaqan soo jireen lagu aaminsan gabadh horba suxufi nagata dhuntay halaawtay beso kaliya saxaafadda ma marka meer walba hooba siyaasadda gala hooba NGO-lada mise iyadoo shaqeeyso whatever meelba oo ummado ka dhaqdhaqaaqas haddii gabarta gal waliba la leeyahay halaawti taasi bal laakiin hadda waa fayla jara oo waxyaabihii feegi ahaa la aaminsanaa hadda laa ku gudubi gabarta meel walbiya seerta iyo sharafta iyo sumcadii iyo tan fahmiisha iyo tan guud ahaan deegaankiiyo ilaaliya korta marka gabdho waxyaabaha ana ka buraaruji fadow mase andira fadow baaqan andiraw ma etaan inaysan xirfadin oo tayo mase shaqo koran qaadan inaysan nagatan tusaale ahaan qofku wariyaha warkuu suwada mase reportka mase warbixinta suwada si dadka ku gado koro ma ku gado kore hadda tusaale ahaan una dhan waliba ogsoognaa haddii warbixintooda dhown sidaas tusaale ahaan Soomaalida xilligii hore walibaan ka jeelaytay Maxamed Ibrahim Macalimow yarko kala meelaha Nairobi Abdirasaaq Xaaji Atoosh laagda madaxa galaan waliya geega BBC da ay akhriyahay asoo warbixin oo may cusub oo fadana lanka bes qof kun warshay qaabku soo dhadhikaw intaas oo dadku isku dhaadhiciyo kaliya jeedin waliba waa marka sugaayaan dhugun sugaayaan so that unin waliba baahna suxufiyiin reer koonfur galbeed oo dadka dhigtan deegaan xilligiisu warka akhriyo ima TV haaday ama radio haaday marka inaysan like that dadkan ku gadan wala isin wadan ama warbixin haatoy ama barnaamij haatoy ama wal umar lagu hormariyo haatoy meediyaha saansiin shay waa aalada kaliya oo umartu wallanka sheego kor waa aalada kaliya umartuna ku hormariyo korna horumarkuna fadaana meeluna ka deeran waliba meediyaha waa geega hadii ana fadaw reer bakoor faliin hoo badan tirta TV-ga ka sheegas idaacadan ka sheegas birdaala guud ahaan deegaanka koonfur galbeed marka meeliyadahayti waliba noo mudantaa intii una tayayn xoojina garab suruna dhiirigelin dadka ka shaqeeyay
gebro waliba siin ku baahan inaysan sameeytan barnaamijyo la dhiirigeliyo haweenka gaar ahaan gebraha yaryarka ee hakurahay inaysan diyaaradan barnaamijyo qurux badan lagu hormariyo aqoonta gebro lagu hormariyo adeegyada bulshada lagu hormariyo hadba xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanka taasoo ay sida dulmiga laga hayo gebro waxyaabaha been abuurka lagu aaminsan gebro inuu naga gudum geega Soomaaliya horumar deertay meel shalay la roogi geega meelo gabdhaha maanta dhigeena ee Soomaaliya deegaanada Soomaaliya digaw horumar deeray ma sha Allah uneenaynu gebrogan aan horseena horumar noocaas inaysan example naga tan tusaale naga tan barnaamijyada diyaaradan hadalka masiinka badayow waliba fadayna siinka dar inkastoo barnaamijkan waxay sheegayaan oo howlo shaqan jeeda waliba hajeela isleeyana si kula qayb gal isla xiraabtaan oo shaqan jeedo la ay sheegay waana ku qayb galay taasna siinka dar fadee taas waliba siin tusaasay sanan jeela inana ka dhex jiro dhalinyarta cid walba cid deegaanku wax uuna ku kordhiyaasa ama se tayees dhalinyartana deegaanada Koonfur Galbeed waliba ka faraxsanaynay oo una garab surnaana dhiirigelina mar walba taasa oo ku han insha Allah by the way farxiya iyo team sheeyada ma siin waliba siin rajaynaysan ka faa'iideysan barnaamijkan muddo 8 bir oo socdo doona gabdhaha suxufiyiinta reer Koonfur Galbeed waliba siin lahaa dadaalkiisa wadan wada ka wasaaradda ahaan insha Allah waliba rajaynay oo sanadka cusub oo dhalada doon walbadan ku bedelna si dhowna la shaqeyno suxufiyiinta una odin walba iska day doona insha Allah inuu ku caawino waana garab surugna gabdhaha suxufiyiinta istiyoonas abaabuli ka shaqeeyo deegaanka Koonfur Galbeed dhammaan ka qaybgalayaasha barnaamijka iyada ma santiin ana soo bahayana mas'uuliyiintii ku hadalay furitaanka kulanka oo hayay xaq dhowrka gabdhaha suxufiyiinta lanku ka hadalay Baydhabo ku dhiya hana kumid gabdho ay ku faa'iideysadeen kulankan iyo yoona Janaawka TV la hadalan gaar ahaan barnaamijka haweenka bismillaah shukri Ismaaciil leedahay ma santa adiyo TV-ga Janaawka asxaabta ka shaqeeyas magacay waa Kartuma Mustafa Nuur wayba howlgalay idaacada Koonfur Galbeed wayba geeka hotelka horyaal magaalada Baydhabo ninka bilowday seminar lanku hadalo xuquuqda hanraabta suxufiyiinta deegaanada Koonfur Galbeed seminarkaasi iyo wayba wadana farxiyo khayr iyo saaso kale leeylo inta badan diirada saarahayaan sidii hanraabta deegaanada Koonfur Galbeed ama guud ahaan badalka ku nool wariyaalka iyo marwalba aan ku fikrayaan xuquuqdiyo marwalbana maamulada oo sheegay in gabdho xuquuqdiyo la siiyo oo walba la ka tixgeliyo shaqadii iyo saasoo kale walyaabo iyo baahanyin gabdho hadii uu suxufiyiinta Koonfur Galbeed mar walba wayba uu jeelna in barnaamijyadan camal ay lahayn kordhi hay'adda WSDA oo yaa saasoo kale barnaamijkan wada oo inta badan xil isku saartay in gabdho deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaan badalka iyo ku qayb qaadan barnaamijkan runtii hadii uu gabdho Koonfur Galbeed mar walba wayba uu baahanayna in barnaamijka camal baaq xuquuqda gabdho suxufiyiinta deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaan badalka lanqobada runtii faa'iido weyn in ka jar hadii uu gabdho Koonfur Galbeed howlgalow Baydhabo eedan aan ku faraxsanay in barnaamijkan lanqobada natiijada barnaamijkan ugu filado mayba kow in maamuladii walaagiyo lan sheegay in ka soo barnaamijkan hanraabto qaybku iyo maamulada walyaabo lan sheegay oo gabdho iyo kala dhaqmo doonaan isla markaasi xuquuqdii oo sii doona unina fursad ninagadaas iyo farxadba in maamulada una ku helna xuquuqdii una baahnayn iyo saasoo kale walyaabo una baahnayn bismillaahi raxmaani raxiim magacay waliba leeray Mariima Labshir waliba aan ku mid ah gabdho wariyaalka oo ka howlgalaya magaalada Baydhabo seminaarku oo intana ninka qobaday walyaabo badan ku faa'iidnay usoona lanku ka hadalay xuquuqda gabdho wariyaalka iyo kaleeyeen saxaafada dhatiye waa barnaamij uu noo maqanaay in muddo aan baahanayna intana nin qobaday fursad weyn oo una geek waliba ningeeta in muddo aan baahanayna in kasto una helnaa faa'iidooyin badan ku haysana walyaabo badan oo una hore nin ku maqanaayeen yana ku faa'iidnay natiijadana barnaamijkan ku filado karo waliba yeeta xuquuqda inaan aan doodo karo oo lor ma fahansanayna hadeena madaga loo ku surmaaye hadda gudib walibana aan diyaar garooway sideen xuquuqda in ka doodo laayna xaqahan dhacsada lahaye qofkii oo gordoran ama ba qofkii si qaldan in la dhaqmo ana meel isku saar laay waliba aan ku socday radio Arlaadi
magaalada Baydhabo seminaarkuna waliba u saaran ku hadalaya xaq doorka ama doorka yeelata haweenka ama sidii loo hormarin lahaaya dhibaatooyinka ama markaasaytiyo wajahayan sidii loo ka dhiirigelin lahaaya in sidii aan ku gudub lahaayeen waliba aan rajaynaya in seminaarku natiijada aan ku filayo uu seeya koo'eed horumar leh balse aqooyinka fara badan lagu hadalaayana wayba ku mid ayeen haano raabto badan oo ku mid ayna wariyalka in dhinacaasay cabaarowshay eedka badanyi balse waana nin dhiirigeliyay sidii una walfayla ama oo aqooyinkaas la kulmaana inuna si xad dhaaf ah una shaqaysana oo una muujina dhabar adag eedan adaga kulanku waliba ku filadaayahay in uu sanaga doorto ko eedan fayla maadaama uu hadba eedan bilaawadi eedna socda waliba rajeeyahay in uu waxyaabo uu muuqanayo in helo doona oo ni dhiirigeli doona eediyad yan rajeeyaan in maamuligan ama agaasimiyalkana kooyan oo la kula hadalay arintaasaytii waana way barajeeyaan in dadka la shaqeeyaan in dhiirigeliyaan si uu horumar badan uu tilaabsanaa أنا صيب هاينا أنا كوميدة قبل وريال كول جلايان مجالة بيدبا لنقابة دي توبر كان إسلام كان لنكوك هذا رأي حق دور كقبل سعفين تكول جلايان مجالة بيدبا سديو أنكو سمن هذا لهايان رجع كول جلايان وربعين تيساسو كربلانتا سحقوق ديو أنسمن هذا لهايتيا gudahaan fiirsadayaal barnaamijkii haweenka iyo intaa ka gabagabayana way baseen dareer siyaasi aan oo Shuur Ismaaciil Axmed